فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه، كن سعيدا. السلام عليكم. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhawow muuqaal cusub. marka aad yeelato afartan dabeecadood waxaa tahay qof leh awood iyo shakhsiyad la jeclaysto. kuma dhahayo dadka oo dhan ayaa ku jeclaysan doona, maya, taasi ma ahan mid dhici karta, balse waxaan hubaa inaad degi doonto oo uu ku jeclaysan doono qof walboo leh qalbi wanaagsan oo aad kula dhaqanto afartan dabeecadood. ahow qof naxariis badan. kaama dhigayso bili-aadan la jeclaysto keliya inaad noqoto qof dadaal badan oo u halgama hankiisa, yaqaana dantiisa, dadkana ay ka nabadgalaan carabkiisa iyo adinkiisa. balse naxariista aad u naxariisato noolo kasta oo hareerahaaga ah ayaa kaa dhigaysa bili-aadan suuban oo soo jiita qalbiyadooda. u naxariisa qof kasta oo la jeclow farxad iyo wanaag, oo ogow haddii aad u naxariisato noolaha dhulka jooga, adigana waxaa kuu naxariisan doona boqorka jooga samada oo ah alla weyne. ahow qof daacad ah. daacadnimadu waa sifo naadir ah oo ay leeyihiin dadkeena qaar, oo aan rajeynayo adiga daawanaya muuqaalkan inaad ka mid tahay dadkaas. daacadnimadu abaalmarinteedu ma ahan inaad hesho qiimo lamid ah qiimaha aad bixiso, dhowritaan iyo ilaalin lamid ah midka aad dadka dhowrta adiga, aaminnimo lamida midka aad adigu dadka aaminto. balse qofka daacadda ah, si kasta loo khiyaameeyo, si kasta oo loo bahdilo, si kastoo loogu xadgudbo loona dulmiyo, ugu dambeyn isaga ayay raacdaa guusha. sidaasi darteed ayay aada muhiim ugu tahay qof kasta oo inaga mid ah inuu yeesho sifada ama tilmaanta wanaagsan oo ah daacadnimo. ahow qof caawin badan. caawintu sidoo kale waa dareen naadir ah oo ay leeyihiin dadkeena qaar. inaad caawiso qof caawin u baahan, siduu doonaha ugu baahdee, inaad dejiso oo aad laabta u qaboojiso qof murugaysan ama tiiraayeysan, inaad garab siiso qof garab u baahan, inaad u gargaarto qof la dulminayo oo garabkaaga baahan, iyo nooc kasta oo aad u bixin karto caawinaad ayaa kaa dhigaysa bili-aadan leh dareen iyo damqasho, oo uu jeclaysanayo qof kasta uu caawiyo. sidaa darteed xusuusna oo caawinaadu ma lahan xad iyo xuduud ay ku eg tahay, balse waa mid furan oo ka dhexaysa noolaha dunida oo dhan. ahow qof aan xukumin dadka. inaad iska xukmiso dadka adigoo aadan ka warhayn xaaladooda rasmiga ah oo ay ku sugan yihiin ayaa ah tilmaan aan wanaagsanayn uu yeesho qofkeen. xukmintu keliya ma ahan midka aad dadka xukmiso kuna tilmaanto waxaysan ku sifaysnayn, sidoo kale naftaada oo aad ku xukmiso inay tahay naf liidata oo aan go-aan lahayn, mid aan awoodin inay fadhiga ka kacdo una istaagto rumaynta riyooyinkeeda ayaa qayb ka ah xukminta. sidaasi darteed qofna ha ku xukumin adigoo aadan u hayn caddayn iyo xog kugu filan oo aad ku xukmiso. ugu dambeyn, inaad ahaato qof naxariis badan, daacad ah, caawin badan, aan u xukumin dadka ogaal la-aan ayaa kaa dhigaysa qof ay jeclaystaan dadka qalbiyada wanaagsan. hagaag, inta aan goordhow ku kulmi doono muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay is-ahow adiga oo u dadaal nafsadaada inaad ku dabaqdo tilmaamaha wanaagsan oo aan ku soo qaadanay muuqaalkeena maanta. aad ayaadna ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.